kulanti wacan oo wanaagsan qayaarta awada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan wada hadal la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Norway ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan hal tababar la sii doono wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir uga qayb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo kulan la qaatay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo dalka Sacuudi Carabiya kula kulmay qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo daafuray shir looga hadlayay dhibaatadii ay geysteen fatahaadihii dalka ka dhacay sanadkii la soo dhaafay qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan wada hadal ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Norway qodobkan waxa soo koobaya wariyaheena Maxamed Cusmaan Nuur Goldan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada Oslo ra'iisul wasaaraha boqortooyada Norway Mr Jonas Gahr Store madaxweynaha ayaa boqortooyada Norway uga warbixiyay horumarka ay Soomaaliya ku talaabsanayso iyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay kalimin keenida dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xaqiijinta xasiloonida dalka iyo tan gobolka waxa sidoo kale uu madaxweynuhu ka mahad celiyay taageerada dhinacyada kala duwan ee Norway u fidinaysa Soomaaliya taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa dib u dhiska iyo dib u soo kabashada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha boqortooyada Norway Mr Jonas ayaa bogaadiyay horumarka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya sameynayso waxaan uu ballan qaaday in dalkiisu sii wadi doono iskaashiga iyo taageerada Soomaaliya iyo Norway waxa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo qoto dheer iyadoo socdaalka madaxweynaha uu haatan ku tagay Norway uu muujinayo sida labada dal ay uga go'an tahay xoojinta xiriirkooda iyo iskaashiga ka dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Norway ku jooga booqasho shaqo oo 3 maalmood qaadanaysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo sheegay in la mideyn doono tababarka la siinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay mideynayso dhammaan tababarada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee ay naga caawiyaan dawladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay mar uu maanta booqasho ugu tagay ciidamada Soomaaliyeed ee ku jiro kuliyadda tababarka ee Turkusom wuxuuna intaasi raaciyay in ciidamada qalabka sida loo dejinayo hal manhaj oo mideysan taas oo xoojinayso gudashada waajibaadkooda ra'iisul wasaaraha ayaa saraakiisha iyo ciidamada kula dardaarmay in ay yihiin rajada dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin isla markaana ay u diyaar garoobaan dagaalada ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab mudane Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladdu abuurayso hay'ado u xil saaran daryeelka agoonta ciidamada qalabka sida isla markaana maalin qaran loo asteyn doono sanad waliba maalinta shuhadada dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed dhinac walba waan mahad celinayaa si gaar ah ugu mahad celinayaa maalintii ugu dambeysay Turkisom iyo maanta wax badan oo horumar ayaa ku soo kordhay oo hadeertan nala tusinayay dhinac walba ayay walaaladeen ay naga taageeraan mar kale waa mahad celinayaa waxaad ogtihiin waxa idin sugayaa waajibka idin saaran dalkiina iyo dadkiina idinka saaran intii idinka shahiiday
tiradoodu ay badan tahay oo ay boqolaal dhan tahay waxaan ilaahay u rajaynaynaa inay shahaadadooda u aqbalo ahalkooda iyo qaraabadii iyo ilmahay ay ka tageenna ilaahay idankiisa sabir iyo iimaan baa ilaahay ka siinayaa sharaf bay ku dhinteen karaam ay ku dhinteen shahaado ayay heleen meel ka qiimo badan oo lagu dhinto ma garanayo idinkuna sidaasaad u dhaarateen dariiqaas ayaad maraysaan dalkiina iyo dadkiina ayaad karaamo iyo sharaf u soo celinaysaan ama waad ku shahiidaysaan waa dariiqo laydinka horreeyey oo ay xalale iyo rag la midii ay aabba idinku yihiin waa dariiqo ummad kasta ayba soo martay oo walaalaheena turkiga oo hadeertaan idinka fursadaha idin siinaya ay soo mareen maalin walbana ay ku jiraan ay u taagan yihiin dal wuxuu ku dhismaa oo sharaf ku yeeshaa oo lagu ixtiraamaa oo karaamo ku yeeshaa ma aha dhaqaalaha qofku dalku dhaqaalo uu samayn karaa laakiin dhaqaalaha horta waxaa ka horreeya dalku inuu degan yahay dal aan deganayn dhaqaalo ma samaysto dal aan deganayn waxbarasho ma samaysto dal aan deganayn cidina investment iyo maalgashi kuma samaysto dal aan deganayn qaybkii iskama celiyo gunnimo kama baxo qaxooti kama baxo qax kama baxo qabaa'il isdagaalamaya kama baxo dullinimo iyo faqri kama baxo dalku waa inuu degan yahay deganaanshahana waxaa aas-aas u ah inuu dalkaasi leeyahay ciidan xoog leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo calankiisa xiran oo sharaftiisa huwan oo ilaaliya oo u diida in calankiisu ku dhaco oo u diida inay dadkiisu ay baahdaan oo u diida in cadow soo weeraro marka ciidankaas ayaa tihiin ra-iisul wasaare xamse ayaa uga mahadceliyey dowladda turkiga oo si weyn u xoojisay eerada isugu jirto qalabaynta iyo tayeenta ciidankeena gaar ahaan dhinaca caafimaadka militariga iyo gargaarka xaaladaha degdega ah wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya oo shir uga qayb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya Biixi Imaan Ciga ayaa shir gudoomiyay kulanka guddiga jihaynta nidaamka maareynta maaliyadda iyo kheyraadka guud iyo xubnaha deeq bixiyaasha wada shaqaynta la leh dowladda Soomaaliya shirkan oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo taageerada hay-adaha kala duwan ee caalamiga ah iyo dalalka saaxiibada la ah dowladda Soomaaliya kuwaas oo kala shaqeeyo horumarinta hanaanka maaliyadda Soomaaliya iyo qorshayaasha dib u habeynta hay-adaha dhaqaalaha dalka sidoo kale waxaa shirkani goobjoog ka ahaa dhammaan xubnaha matalayay dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan xubnaha matalayay wasaaradaha maaliyadda oo isugu jiray wasiiro agaasimayaal iyo la taliyaal ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Saale Axmed Jaamac oo daafuray barnaamij looga hadlayay dhibaatadii ay geysatay fatahaadihii ka dhacay dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Saale Axmed Jaamac ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay qiimeynta waxyeelada iyo khasaaraha ka dhashay roobabkii deerta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in warbixintan oo laga soo aruuriyay gobolada dalka oo dhan ay muhiim u tahay sidii loo taageeri lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen roobabka deerta sideetamayadii oo laga joogo hadda 40 sano maximum in dhulkii daaqa iyo beeraha ahaa ama kaynta ahaa ee Soomaaliyeed uu si weyn isu bedelay hadda uu 10% ku soo ururay waa arrin naxdinteeda leh waa arrin waxyeeladeeda leh waa arrin in laga feejignaado oo qaran ahaan iyo ummad ahaanba inaynu uga howlgalno aynu u baahannahay oo aad loo dul istaago موضوعاً هلكن تاجن مانت أنا قلت أن شوقي ومركي لبعض rapid assessment needs assessment
la samaynayo si weyn loo samaynayo horta waxay tilmaan ka tahay tii 2011 dhacday ciidana wax ma asas gareene turki iyo ma taqaanay carab iyo cajab inta la inooga yimi baa la inoo gurmanaya soo ma xasuusataan maanta laakiin hay'ado kala duwan oo Soomaaliyeed oo rag iyo dumar ay hogaaminayaan arrintan xeel dheeri u leh oo wasiir cashuur oo halkan fadhiyo uu nagala mid yahay ayaa si cilmiyeysan u qiimeynaya saameyntii daaradku ay ku yeeshaan ummadda waxa iyana madasha inala fadhiya bahdii baac mushtariga Soomaaliyeed oo aan rabo inaan si gaar ah ugu mahad celino maalin walba oo ay nagu adag tahay iyagaanu xaqooda u cararnaa iyo culimada oo niraahdo war dadkii baa baxaya wax nala qabta horta ilaahay khayr ka siiyo dadaalka joogtada ah ee ay galiyaan ninba wuxuu yiri waxba yaanu xeer ka imarin xoolana isiina xaasha lillahi in liman ka xistay xumihi waaya de maalintii qaraartuun hadda rag xasuusanno oo culimaduna ay ka mid tahay ilaa iyaga la aamino og yahay aad baan uga mahad celinaya waayo arrintan aniga kor joogteeye labadii sano u dambeysay duruuf adag baan la koobsanay laakiin ilaahay naguma ceebayn gudoomiye maxamuud gudoomiye ku xigeenkiisa hawl wadeennada hay'adda Sodma waxaan rabaa in si gaar ah lagu sacbiyo maxamuud waa nin orod badan oo haddaan orodilin fadhi dili maayo jawhar baad ku arkaysaa baydhabaad ku arkaysaa maalin dhaweed meel uu ku soo koray uu nageeyo saabuun la yiraahdo oo nimcada talana aad yaabayso hawsha halka laga qabanayo walaad ka warrami doonaa waxaan rabaa inaan dul istaago maalin walba waxaynu ku jiraynaa qiimeynta waxyeelada iyo sidii looga falcelin lahaa mise qorshayaal baa inoo yaala aan ka soo bilaabo xukuumad ahaan ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo madaxweynahaba waxa ka go'an in isbedel lagu keeno habkii dawladdu ay uga falcelin jirtay ama uga tabaabushin jirtay waxyaabaha loo qabanayo bulshada qaranka Soomaaliyeed haddii ay jiraan dalal satellite kiciya oo dayax gamceed iyo dirta haddii ay jiraan dalal markay doorasho galan lagu qiimeeyo war housing prices ki hoos ma u dhacay ama sanadkan maxaa la yiraahdaa war waxaan maxaa la yiraahdaa top 500 companies stock exchange ki hoos ma u dhacay haddii la isku hayo waxa xaqiiqa dalka Soomaaliyeed marka adduunku uu diiradda soo saaro waxa la arkaa dal la tacaalaya daadad iyo abaaro taasaynu ku suntanahay taasaa astaanteena noqotay munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay xukuumadda xubnaha matalayo dowlad goboleedyada iyo saaxiibada beesha caalamka wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo kulan kula qaatay dalka Sacuudi Carabiya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sanadkan xajka soo gaaray kulan si weyn loo soo agaasimay oo sidoo kale uu ka soo qayb galay ergeyga dowladda Soomaaliya uga wakiilka ah ururka iskaashiga Islaamka Dr. Sheekh Cabduqaadir Macalin Nuur ayaa looga hadlay sidii adeega xajka sanadkan looga dhigo mid horumarsan dhammaan culimada ka soo qayb gashay kulankan ayaa si weyn u bogaadiyay sida ay u socoto howsha adeega xajka sanadkan sida wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee u nidaamisay howlaha xajka wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay culimada ayaa ka codsaday in ay ka shaqeeyaan sidii loogu wacyigelin lahaa dhammaan xujayda Soomaaliyeed iyadoo laga shaqeynayo midnimadooda guud ahaan warkii telefishinka Ilaac waa naga inta